السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kalmoy media iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida qodobada aad wararkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona dagaaladii gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer oo muuqdeen markan waji kale yeelanayaan xilli dowladda federaalka Soomaaliya la shaaciyay inay si toos ah dagaaladan ugu lug yeelanayso magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa ka soconaya kulamo xasaasi ah oo u dhaxeeya wasiirka difaaca Turkiga wasiirka difaaca Masar iyo sidoo kale dhigooda Soomaaliya xalay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka waxa kulan gaar ah oo albaabada u xiran yihiin uga qabsoomay wasiirka difaaca dowladda Masar iyo dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi maxaa looga hadlay kulankaas ciidamada lagu diyaarinayo Muqdisho halkee marayaan waqti xaadirkan muxuu yahay qorshaha dowladda federaalka ee ku wajahan dhinaca maamulka waqooyi galbeed Soomaaliya ama Somaliland wararkii ugu dambeeyay guud ahaan dhaqdhaqaaqyadaasi ayaan kula wadaagayaa soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo haddii aad horey noola joogtood ku maasan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu halkan markasta kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo caalamka hagaaga gobolada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka taagay xiisad colaadeed oo u dhaxaysay ciidamada maamulka waqooyi bari Soomaaliya kuwa difaaca deegaanka ee gobolka Sanaag iyo ciidamada maamulka gooni goosadka ah ee Somaliland iyo maleeshiyada u taageerayo ayaa waxaa markaasi soo baxay waqti xaadirkan in dagaalkii u dhaxeeyay dhinacyadaasi uu waji kala yeelanayo isla markaana uu noqonayo dagaal caalami ah saacadihii ugu dambeeyay waxaa si weyn warbaahinta u qabsaday in maamulka waqooyi galbeed ama Somaliland uu isku diyaarinayo ama uu diyaar garoobayo weerar ballaaran oo uu ku qaado maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada difaaca deegaanka ee gobolka Sanaag wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada sidoo kale hub aad u culus maamulka waqooyi galbeed Soomaaliya uu ku soo daaburay furimaha hore ee dagaalka isku hor fadhiyaan kuwa maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo ciidanka difaaca ee gobolada Togdheer Sool iyo sidoo kale Sanaag maamulka waqooyi bari oo ka duulaya ka hortagga dhaqdhaqaaqyada maamulka gooni goosadka ah ee Somaliland ayaa waxay wararku sheegayaan in ciidamadii ugu badnaa iyo hub aad u culus loo daabulay dhinaca jidaha hore ee duleedka oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland halka sidoo kale ciidanka difaaca deegaanka ee gobolka Sanaag ay iyaguna isku fidiyeen isla markaana difaacyo ay ka sameysteen duleedka magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag madaxweynaha maamulka gooni goosadka ah ee Somaliland oo u muuqda inuu isku diyaarinayo dagaal ballaaran oo uu doonayo in uu ku gaaro gobolada Sool Togdheer iyo sidoo kale Sanaag ayaa waxaa la sheegayaa isla markaana xogaha aynu helayno ay tilmaamayaan inuu amar ku siiyay saraakiisha ku sugan furimaha hore ee dagaalka inay u diyaar garoobaan dagaal ballaaran oo lagu qaado maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo ciidanka difaaca deegaanka ee gobolka Sanaag haddaba dhaqdhaqaaqyadan soo kordhay iyo sidoo kale xiisadda soo cusboonaatay ayaa waxa ay u muuqataa in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhaqsi leh uga falcelisay iyadoo magaalada Muqdisho lagu diyaarinayo ciidamo aad u fara badan oo kuwa xoogga dalka qaybahooda kala duwan si gaar ah ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ciidanka gorgor iyo ciidanka ilaalo qaran ee iyagu markaasi sida gaarka ah u tababaran lana markaasi diyaariyay ka hortagga iyo sidoo kale ka dabatagga weerar kasta oo ku yimaada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaarinayso ciidamadan isla markaana la sheegay in maalmaha soo aadan loo daabuli doono gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay helayso taageero caalami ah iyo sidoo kale garab istaagga saaxiibo badan oo Soomaaliya u ballan qaaday inay ku garab taagan yihiin dulaan kasta oo ka dhan ah maamulka gooni goosadka maamulka gooni goosadka ah ee Somaliland ayaa dhankiisa waxa uu markaasi u muuqdaa inuu isku haleynayo taageerada maamulka uu dhowaan xiriirka la sameeyay isla markaana dhulka ay haystaan maamulkaasi uu waqti xaadirkan ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro haddaba dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya marka laga soo tago dhaqdhaqaaqyadaasi iyo sidoo kale abaabulkaasi soconaya waxaa dhinaca kale magaalada Muqdisho si xawli ah looga dareemaya dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo kuwa military magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wasiirka difaaca dalka Masar kaas oo xalay kulan xasaasi ah kula yeeshay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya dhigiisa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi wasiirka difaaca Soomaaliya iyo sidoo kale dhigiisa dalka Masar
ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan geeska Afrika, dhaqdhaqaaqyadan cusub ee soo kordhay iyo faragelinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waqti xaadirkan ay la kulmayso. wasiirka difaaca Masar ayaa sheegay inay si buuxda u garab taagan yihiin Soomaaliya, isla markaana ay ka hortagi doonaan duulaan kasta iyo isku day kasta oo Soomaaliya markaasi lagu kala qaybinayo, isaga oo sheegay in midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaana, isla markaana jamhuuriyaddu ay tahay qadiyad u taalla guud ahaan ummadda Islaamka difaaceeda. wararka aynu helayno dhinaca kale waxa ay sheegayaan in Soomaaliya ay helayso xiriirro caalami ah oo kaga imaanaya dhinaca maamulka Somaliland ee xiriirka la samaysatay dalalka ay ishayaan ee cadaawadda weyn ay ka dhaxayso sida Iran, oo la soo warinayo in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka helayso xiriirro taageero iyo sidoo kale garab istaaga, iyadoo dhanka kalena Somaliland ay u muuqato inay wajahayso culays iyo cadaadis aad u xooggan, waxaana si weyn uga hor yimid damaca Somaliland guud ahaan dalalka Islaamka, iyadoo aysan jirin weli cid kale oo ku dhiiratay inay aqoonsi siiso maamulka gooni-goosadka ah ee Somaliland, waxaana guud ahaanba dalalka ay u muuqdaan kuwa ka cagajiidaya aqoonsi ay siiyaan maamulka gooni-goosadka ah ee Somaliland. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa in markan ay si toos ah ugu biirayso isla markaana ugu lug yeelanayso dagaaladii muddada sanadaha ah ka socday gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag, oo hadda markaasi isku bedelay dagaal u dhexeeya maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo maamulka gooni-goosadka ah ee Somaliland, oo isagu markaasi 2023 wixii ka dambeeyey u dhaqaaqay inuu raadsado taageero caalami ah maadaama uu ka adkaan waayey bulshada gobollada Sool, Sanaag iyo Togdheer oo si weyn u diidan nidaamka gooni-goosadka, waxaana uu hadda u muuqdaa inuu doonayo inuu ka faa'iidaysto xiriirka cusub ee uu la yeeshtay maamulka markaasi uu hadda madaxweynahooda dhulka ay haystaan uu ku sugan yahay. marka laga soo tago xiisadan ay dowladda federaalka Soomaaliya markan sida tooska ugu biirayso, waxay dad badan tilmaameen in dagaal kasta oo dib ugu qarxa gobollada Sool iyo Sanaag uusan noqon doonin mid ku ekaada gobolladaasi, isla markaana si weyn u saameeya deegaanada kale ee maamulka Somaliland uu ka arrimiyo ama ay degto beesha Isaaqa. dadku waxay tilmaameen in beesha Isaaqa isku soo hubaynayso sidii ay u qabsan lahayd bulshooyinka gobollada Togdheer, Sool iyo sidoo kale Sanaag oo muddo dheer markaasi uu kala dhexeeyay dagaal aad u xooggan oo kala ah dagaal markaasi ay ku doonaysay beesha Isaaq in deegaanadaasi ay ku qabsato oo si xoog ah ugu maamusho, halka bulshada gobolladaasina ay si weyn u diidanayeen in dhulkooda la qaato. haddaba aragtidaada qaybta faallada ku dhiibo, suuragal ma tahay in Somaliland mar kale ay la wareegto gobolladaasi iyadoo ka faa'iidaysanayso taageero militari oo ay ka hesho maamulka ay dhowaan xiriirka la samaysay madaxweynahoodana hadda uu ku sugan yahay dhulka maamulkaasi uu haysto? qaybta faallada nagula wadaag, ma ku guulaysan doontaa Somaliland qorshaheeda mise waa ay ku fashilmi doontaa?